halkan oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga dahfuray diiwaangelinta dadweynaha codbixiyayaasha doorashada hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka waxaana munaasabadan xariga ka jaray madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Cali iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya magacaygu waa Cabdulqaadir Axmed Cali muwaadin reer Laascaanood ah waxaan saaka isu diiwaan geliyay inaan ka qayb qaato doorashooyinka soo wajahan ee qof iyo cod si aan u doorto mas'uuliyiintii iyo golayaasha igu matali lahaa golaha deegaanka ee degmadan aan ku noolahay Laascaanood waxaan rajaynayaa in doorasho inoo qabsanto xor oo xalaal ah waxaan sidoo kale ugu baaqayaa bulshada guud ahaan ku dhaqan Waqooyi Bari inay u soo baxaan diiwaangelintan oo runtii ah fursad taariikhi ah oo qof waliba uu ku sixi karayo hanaanka iyo cidda iyo meesha matalaadiisu ay taallo waxaynu u baahannahay inaynu helno dadkeennu hogaamiyayaal u qalma laga soo bilaabo golaha deegaanka ilaa ay doorasho kastoo dhacaysa markaasba waxaynu heli karaynaa madax iyo mas'uuliyiin iyo shacabkii soo doortay oo is-ogol isku niyada isku meel la u wada jeeda mar kale waxaan codsanayaa haddii la yidhaahdo inaynu fadhiga ka kacno is-abaabulno isdiiwaan gelinno doorashadatan qof kastaa uu ku ciilbaxo oo xaqiisa uu ku helo codkiisa iyo fartiisa waa dimuqraadiyadda macnaheeda waa sinaanta macnaheeda waa cadaaladda macnaheeda nasiib wanaag maanta iyadoo goonigoosad iyo calan dhiig lihi uusan sudhnayn Laascaanood ee uu suran yahay calankii buluugga ahaa ee aynu u soo dhimannay xorriyaddiisii isagoo suran yahay Laascaanood inaynu mar kale isu taagno isdiiwaangelin dimuqraadiyadeed oo qof iyo cod ah waa nasiib wanaag waxaan ugu baaqay reer Waqooyi Bari in fursadda qaaliga laga faa'iidaysto dhammaanteedna aan isdiiwaangelinno si aynu codkeena u bixino una dooranno madaxdiina matali lahayd waa mahadsantihiin maxamed cali bile warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.